Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Bal sawiro adigoo noqday zombie, bini'aadamka dhanna kaa soo horjeedaan, kadib aad go'aansatay inaad awood yeelato, isla markaana aad noqoto mid awood badan, kadib boqor u noqday dhammaan zombigii kale, halka ay bini'aadamkuna adiga iyo ciidankaaga idin ugaadhsanayaan. Maanta waxaan idiin wadaa sheekada ninkan isku beddelay zombie, awood badan, iyo sida uu bini'aadamku ula macaamilo. Balse ka hor inta aynaan bilaabin, xabiibkeena ku salli sallallahu calayhi wasallam. Salaad waajibana haddii lagugu leeyahay soo gudo walaal. Intaas kadib, koobkaaga shaaha soo diyaarso, una diyaargarow sheekadan xamaasada badan. Sheekadu waxay ku bilaabmaysaa tareen si saa'id ah u socda isagoo isla markaana dad hor joogaan, halka uu dirawarkiina qoorta daaqada kala soo baxay oo uu u qeelinayay dadka si ay uga dhaqaaqaan waddada, isagoo u sheegay in tareenku aanu istaagayn. Dadkii tareenka saarnaa qaar ayaa ka boodayay tareenka, halka dadkii kalena meeshii ka kala yaaceen. Laakiin hooyo iyo wiilkeedii ayaa waddada ku xanibmay, halka ay dadkiina u qeylinayeen oo ay sheegayeen inay kasoo dhaqaaqdo, laakiin way kasoo dhaqaaqi kari weyday. Halka tareenkiina si xawaare loogu sii socday. Nin dadka dhex taagnaa oo funaanad koofiyad la xidhnaa ayaa isla markiiba si xawaare loo dhaqaaqay, isagoo isla markaana tareenkii gacantiisa ku qabtay, halka uu tareenkiina burburay. Hooyadii markay indhaha kala qaaday, waxay aragtay ninka hor taagan iyadoo isla markaana u mahadcelisay. Isna gacanta ayuu soo fidiyey, laakiin markay wejigiisii aragtay way qaylisay. Sheekadu waxay u soo wareegtay isagoo hurdada kasoo kacay. Magaciisu waa Sambi, da'diisa ma garanayo. Tan iyo markii uu Sambiga noqday, riyadiisu waxay ahayd inuu saaxiib la noqdo bini'aadamka. Riyadaasna waa riyo uu rumayn doono. Kadib candhuufta ayuu iska tufay isagoo ili ka raacay biyihii. Marar badan ayuu bini'aadamka caawiyey, isagoo isla markaana diyaarad soo dhacaysay qabtay, halka uu mar guri gubtay carruur kasoo badbaadiyey. Bilowgii sidan oo dhan uma awood badnayn. Markii kumanaan sano ka hor, adduunka ayaa cudur ku faafay, kaasoo dadkii u beddelay Sambi, isagoo isla markaana galaaska ku jira ayaa Sambi soo galay, kaasoo isaga cunay. Sidaasna wuxuu ku noqday Sambi. Laakiin bini'aadamkii ayaa yimid, iyagoo isla markaana bilaabay inay Sambigii xasuuqaan dhammaantood, halka intii soo hadhayna ay ka dhigteen tamar dabka u dhalisa magaalada. Isna wuxuu go'aansaday inuu awood bato, isla markaana wuxuu bilaabay inuu jimicsi bilaabo. Sidaas awgeedna wuu ku guulaystay, wuxuuna noqday mid awood badan, dadkana wuu caawin jiray. Kadib wuxuu xaqiiqsaday in cuntadii ka dhammaatay, isagoo isla markaana supermarketka tegay. Gabadhiina waxay ku tidhi, waad ku mahadsantay inaad wax naga iibsato, iyadoo markaana weydiisay sababta uu maaskara u xidho mar kasta. Isna wuxuu ku yidhi, maaskara ma xidhnin, laakiin iyadu may rumaysan. Kadib wuu iskaga soo baxay meeshii isagoo kun fara badan iibsaday, kaasoo gaadhi loogu raray. Dhanka kale, laba wariye ayaa dusha ka daawanayay isaga si ay u ogaadaan sirtiisa oo ay uga saaraan maaskaradan uu xidhan yahay. Gacanyarihii wariyaha ayaa weydiiyey haddii ay qabanayaan wax sax ah, halka uu Master Sambina uu eegayay waraaqad uu ku sawirnaa mid ka mid ah askartiisa gaarka ah, kaasoo warka lagu soo dhejiyey. Laakiin wariyeyaashii oo isla hadlaya ayaa indhahoodii mar keliya kasoo dhaceen. Waxay arkeen Master Sambi oo gaadhigii kor u qaaday, isagoo isla markaana meeshii iskaga booday oo hawada sare u booday, santarleedka agtiisana tegay. Dhanka kale, wuxuu kusoo degay magaaladii Sambigu joogay, isagoo isla markaana dadkii u qaybiyey beedkii uu siday, halka iyaguna soo dhaweeyeen isaga. Kadib waxay weydiiyeen sababta uu soo kaxayn waayey gaadhiga ee uu u soo qaaday. Isna wuxuu sheegay inaanu haysan laysankii dirawalnimada. Iyaguna waxay isweydiinayeen waxa uu laysanku yahay. Kadib waxa uu weydiiyey meesha ay ciidankiisii gaarka ah joogaan. Kadib farta ayay ugu fiiqeen, iyagoo u sheegay inay joogaan hodheelka. Isna wuxuu ku amray dhammaantood inay cunaan ukunta oo aanay bini'aadamka cunin. Markii uu soo galay meesha waxaa joogay Lang oo darajadiisu ahayd darajada SSSS, iyo sidoo kale Far, Gan, Go, iyo Fermet, iyo sidoo kale Blackie oo ahaa hogaamiyaha ciidankan. Dhammaan darajadoodu waxay ahayd SSS oo aad ay u awood badnaayeen. Markii uu soo galay way soo dhaweeyeen, isla markaana wuxuu waraaqadii siiyey Gow, isagoo sheegay inay bini'aadamku raadinayaan isaga. Isaguna wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay maadaama uuna awooddiisa kantarooli karin. Dhowr bini'aadam ayuu googooyey, sababta awgeedna waraaqada waa loogu sawiray isaga. Kadib wuxuu fadhiistay kursigii, isagoo Blackie sheegay inay ciidankoodii sii tiro badanayaan marba mar ka dambaysa, laakiin bini'aadamka aanay ka dhuuman karin. Halka Fermitna uu ku qayliyey inuu isaga ku fasaxo bini'aadamka uu jarjari doono, uu mishaartiisa ku jarjari doono. Laakiin Master Sambi wuu joojiyey, isagoo ku yidhi ma ogid dhibaatada ay bini'aadamku leeyihiin. Kadib cod ayay malqeen oo ka malqeen magaalada dusheeda. Magaalada dusheeda waxaa joogay diyaarad nooca dagaalka. Commanderkii ciidankan ayaa eegaysay muraayadda, iyadoo isla markaana gacanyarayaasheeda u sheegayaan inay wax walba diyaar yihiin oo ay nuclearkii diyaariyeen. Kadib Master Sambi ayaa kor u eegay, isagoo isla markaana neef aad u weyn soo daayay oo caajis dareemaya, halka uu commanderkiina sheegay inay neceb tahay dhammaan Sambiga oo ay duli doonto dhammaantood. Kadib Fermit ayaa sheegay inay bini'aadamkii meesha yimaadeen oo isaga u diro si uu usoo mariyo dhammaantood, laakiin Master Sambi ayaa joojiyey oo ku yidhi joog, adigu awooddaada ma xakameyn kartide. Isagaana isla markaa dhankooda u soo baxay. Commanderkii waxaa loo sheegay inay dhammaan ciidanku diyaar yihiin, kuwii dhulku xitaa ay meesha soo gaadheen oo ay soo diyaar garoobeen. Albaabka diyaaraddana waxaa saarnaa marshal ka socda qaybta sayfyahanada, isagoo isla markaana
isku diyaarinaya inuu ka boodo diyaaradda, isagoo sheegay inuu dili doono dhammaan saambiga awoodda badan ee aanay askartu la macaamili karin. Dhanka kale, laba nin ayaa daawanayay dagaalkan iyo weerarkan, isagoo kii muraayadda xidhnaa ku sheegay Fay oo ah ninka timaha cad leh inay dhammaan soo gaadheen ciidankii ka socday dugsiga dadka awoodda badan oo ay soo heleen meesha ay saambiga ku noolaayeen. Kadib Fay ayaa taabtay badhan cas isagoo islamarkaana bini'aadam shabag ku xidhan meeshii kusoo daayay halka ay saambigiina kusoo hareereysmeen. Ciidankii ayaa loo sheegay warkaas iyagoo islamarkaana ku yaacay dhankooda si ay bini'aadamka u badbaadiyaan. Gabadh yaroo timacas ayaa la yaabaneed sababta uu saambigan u dhiman laayahay maadaama ay xabad ku ridaysay ilaa maanta oo dhan. Saambigan ay xabadda ku ridaysay wuxuu ahaa Mr. Sambi oo ilaalinayay ilmo yaryar oo Saambiya, islamarkaana hogaamiyihii ciidankan ayaa gantaal kusoo riday isagoo islamarkaana ku riday Mr. Sambi, laakiin Mr. Sambi waxba ma noqon oo caadi ayuu ahaa. Kadib mid ka mid a ciidanka ayaa u yimid ninkii isagoo ku yidhi qofkaad xabadda ku riday maaha Sambi waa qof caadiya, wuxuuna xidhaa maaskaro Sambi u eeg sababta awgeed ayaad ugu khaldantay. Markuu warkaa marqayna aad ayuu u naxay ninkii. Dhanka kale Marshalkii waxaa loo sheegay inuu soo baxay Sambi awood badan isagoo islamarkaana diyaaraddii kasoo booday. Dhanka kale Fay iyo shaqaalihiisii waxay ogaadeen in la badbaadiyey dhammaan bini'aadamkii ay meesha ku xidheen, isagoo Fayna u sheegay inay howlgalka sii wadaan oo ay kiciyaan suntii ay dhex geliyeen Sambiga isagoo islamarkaana kiciyey. Kadib Sambigii wuxuu bilaabay inuu isku bedelo bahalo waaweyn oo awood badan, halka uu Mr. Sambina la yaabana waxa dhacaya. Marshalkiina weli cirka ayuu kasoo socday oo dhulka ayuu kusoo socday. Kadib waxaa loo sheegay ciidankiina meesha iskaga tagaan oo ay ka baxaan meesha maadaama Sambi awood badan soo baxay. Guddoomiyihiina wuxuu u cararay dhankii Mr. Sambi isagoo islamarkaana soo qaaday kadib gaadhiga kusoo dhex riday uuna sheegay inuu badbaadinayo isaga. Gaadhiga waxaa la saarnaa Down gabadha yar timaha cas iyadoo islamarkaana weydiisay haddii uu maaskara xidhan yahay, isna isagoo qoslaya ayuu ku yidhi haa maaskara ayaan xidhanaya oo yara baqanaya. Kadib Sambiga awoodda batay ayaa soo qabtay bas isagoo islamarkaana ciidankii kusoo tuuray, laakiin baskii waxaa kala gooyey Marshalkii oo dhulka soo gaadhay halka ay ciidankiina farxeen. Marshalkiina Sambiga ayuu hor istaagay isagoo ku yidhi waan ku dilaya. Dhanka kale kooxdii soo baxsatay ee meesha kasoo yaacday waxay soo gaadheen meel safe ah isagoo islamarkaana meeshii iskaga yimid halka ay gabadhii yareeda timaha casayd ee Down lagu magacaabayna ay aragtay inuu meeshii ka tegey. Dhanka kale Marshalkii wuxuu la dagaalamayay Sambigii weynaa oo soo weeraray isagoo islamarkaana seeftiisa soo saaray kadib Sambigii si yaroo fudud u googooyey jirkiisa. Kadib seeftiisa ayuu galka ku celiyey isagoo sheegay inuu dilay cadowgii soo muuqday, laakiin wuxuu arkay Mr. Sambi oo dul taagan Sambigii uu dilay isagoo Mr. Sambina hoos u eegayo. Dhanka kale diyaaradda gudaheeda gacanyarayaashii waxay sheegeen in Marshalkii uu ka awood batay Sambiga awoodda badnaa ee soo muuqday halka ay commanderkiina ku faraxday. Mr. Sambi wuxuu dul taagnaa Sambigii dhintay isagoo islamarkaana raali gelinaya oo ku lahaa maadaama ay Sambi nahay bini'aadamkiinima deynaya marka aad ayaan uga xumahay waxa kugu dhacay waana kuu argudi doonaa. Islamarkaana Marshalka ayaa dhankiisa u soo cararay isagoo islamarkaana soo weeraray Mr. Sambi, laakiin diyaaraddii ayaan kusoo laabanay halkaasoo la sheegay in Marshalka qadkiisii uu go'ay oo aan la garanayn wax ku dhacay. Islamarkiiba commanderkii way naxday iyadoo islamarkaana diyaaraddii kasoo booday halka uu Marshalkiina dul saarnaa bir isagoo qaawan, Mr. Sambina wuu hoos taagnaa. Gacanyarayaashii commanderku iyaday la hadleen oo ay ku yidhahdeen soo noqo ma ogin dhibaatadu nooca ay tahay, laakiin iyadu may malqin waxaas oo dhan oo weerar ayay ku qaaday Mr. Sambi. Markii ay mindideedii ku dhufatayna mindideedii way jajabtay iyadoo islamarkaana yaabtay oo la yaabtay sida jidhka Sambigan uu u adag yahay. Kadib way ka booday meeshii iyadoo gacanyarayaasheediina u sheegayeen inay soo noqoto, iyadna waxa u sheegtay inay caadi tahay. Mr. Sambi ayaa hadlay soo yidhi waan idin raali geliyey daaya. Iyadna way yaabtay waxay ku tiri waad hadli kartaa miyaa, mabaan moodin inay Sambigu hadli karaan. Kadib mindi ayaa xaggeeda dambe ka soo saartay iyadoo islamarkaana soo weerartay isaga, laakiin isagu si yaro fudud ayuu ugu baneeyey weerarkeedii oo meeshii uu ka booday. Iyadna waxay burburinaysay meeshii oo dhan siday u weeraraysay isaga. Aad ayay u cadhootay oo ku qaylinaysa maxaad la boodboodaysaa bay ku lahayd istaag. Dhanka kale meeshii waxaa laga qaaday Marshalkii isagoo qaawan welina miir daboolsan. Gacanyarayaasheedina waxa u sheegeen commanderka inay meeshii ka kaxeeyeen dhammaan bini'aadamkii oo ay ka daadgureeyeen dadkii dhibaataysnaay oo dhan, laakiin iyadoo hadalkaas oo dhan may malqayn maadaama ay weli eryanayso Mr. Sambi halka uu isna ka ordayey. Way ku qaylisaa isagoo waxay ku tidhi maxaad u ordaysaa istaag, isna wuxuu ku yidhi haddaan istaago soo ima dilaysid. Islamarkaana awood lugaheeda ku jirta ayay soo saartay iyadoo islamarkaana dusha kaga timid Mr. Sambi oo dhulka ku riday, islamarkaana gebi ahaantiisiba kala goysay. Kadib dhulka ayuu madaxa ugu dhacay halka iyadna seefteedii xaraysatay iyadoo sheegtay inay dishay Sambigii hadlayey. Waxa u sheegtay gacanyarayaasheedii inay diyaaradda soo dhaweeyaan si ay u raacdo. Dhanka kale Fay wuxuu ogaaday in qorshihiisii xumaaday. Kadib wuxuu amray in basaaska ku dhex jira diyaaradda commanderka uu qorshaha fuliyo. Kadib dadkii way faraxsanaayeen iyagoo aad u faraxsanaa in la badbaadiyey. Basaaskii ku dhex jira diyaaraddana wuxuu sii daayay nuclearkii diyaaradda saarnaa isagoo islamarkaana dadkii ku sii daayey halka islamarkiiba ciidankii qabteen isaga. Dadkii faraxsanaana way naxeen markay arkeen nuclear kusoo socda. Commanderkiina sidoo kale way naxday oo waxay qabatay garan weyday. Waxay istidhi meesha ka bood laakiin way ka boodi kari weyday maadaama awooddeedii oo dhan ku isticmaashay Mr. Sambi. Waxay rabtay inay lugaheeda baytariga ka bedesho
beddesho kadib dhankeeda waxaa soo istaagay Mr. Sambi oo eegaya isla markaana wuxuu qabtay garabkeeda isagoo ku tuuray diyaaraddii. Markii ay diyaaraddii soo gaadhayna way yaabtay iyadoo tidhi weli wuu nool yahay. Mr. Sambi wuxuu kor u eegay nuclear-kii ku soo socday magaaladiisa isagoo isla markaana dhulka laa ka jaray kadib kor u booday isagoo isla markaana gacantiisa ku qabtay nuclear-kii dhammaa. Meeshiina uu ku qarxay nuclear-kii isagoo dhammaan dhulkii oo dhan gilgilay oo ololkiisii meeshaas wada qabsaday. Commander-kiina waxay la yaabanayd inuu Sambi badbaadiyey dadkii iyo iyadaba. Mr. Sambina dhulka ayuu soo istaagay isagoo waxba noqon. Kaliya waxay wax soo gaadheen waxay ahaayeen dharkiisa oo googo'ay. Fayna markuu ogaaday inuu qorshihiisii xumaaday wuxuu go'aansaday inuu meesha iskaga tago. Dhanka kale diyaaradda gudaheedii Commander-kii waxay la yaabanayd inuu Sambi badbaadiyey taasoo ay aad u necbayd maadaama ay Sambiga oo dhan necab tahay. Laakiin gacanyaraheedii ayaa u yimid iyadoo ku tidhi waxa ku badbaadiyey Sambi ma ahayn ee qof caadiya weeyaan oo xidhan maaskaro Sambi u eeg si uu wejigiisa u qariyo. Iyadna aad ayay u sii xanaaqday maadaama ay moodaysay inay la dagaalamaysay Sambi ilaa maanta oo dhan. Dhanka kale Mr. Sambi wuxuu soo dhex galay dadkii isagoo isla markaana meel dadka lagala hadla tegay oo qaraacay ciidankiisii waxayna u sheegeen inay dhammaan Sambiyadii kale meesha ka saareen iyaguna ay badbaadeen oo ay nabad qabaan. Kadib wuu iskaga soo noqday meeshii isla markaana wuxuu yimid gurigiisii. Commander-kii iyo ciidankeediina waxay ogaadeen gurigiisa isagoo isla markaana albaabka sii furaya ayay kamarada ka arkeen isagoo qaawan. Markii uu gudaha galay Mr. Sambi wuxuu bilaabay inuu jimicsi bilaabo laakiin cabaar kadib albaabka ayaa laag lagu soo furay oo waxa soo galay Commander-kii iyadoo ciidankii la socday ku amartay inay dhammaan soo guraan alaabtiisa oo ay u kaxeeyaan isaga dugsiga awoodda dadka badan ay ku nool yihiin. Isna waxa uu sheegtay in laga aqbalay dugsiga oo maanta kadib uu noqon doono arday ka mid ah dugsigaas. Isagoon hadal ayay ku amartay inay nimankii qaadaan kadib meesha ay ka qaadeen oo gaadhi ayay saareen. Dhanka kale Downa oo ag taagneyd Commander-ka ayaa weydiisay meesha uu ku noolaan doono. Kadib waxay ku tidhi aniga ayuu la noolaan doonaa. Markii la soo gaadhay gurigii Commander-ka alaabtiisii oo dhan halkaas loo dhigay kadib ciidankii way iskaga baxeen. Mr. Sambi iyo iyada ayaa is hor fadhiistay isaguna wuxuu moodayay in la ogaaday inuu isagu Sambi yahay. Kadib wuxuu ku yidhi ma halkan ayaan ku noolaan doonaa oo adigaan kula noolaan doonaa. Iyadna waxay ku tidhi haa laakiin wax qalad haddaad samaysid ogow inaan ku dili doono. Isna wuxuu ku yidhi wax qalad ma samayn doono. Hadalkeedii ayay sii wadatay iyadoo u sheegtay inuu ku noolaan doono oo uu geli doono qolka martida. Kadib Mr. Sambi ayaa hoos u hadlay isagoo isla markaana yidhi anigu run ahaantii ma ihi bini'aadam ee Sambi ayaan ahay laakiin iyadu may malqayn oo lugaheeda ayay ku mashquulsanayd iyadoo isla markaana lugihiis ka saartay. Kadib markuu lugaheeda go'aan arkay ayuu ku yidhi lugahagii maxaa ku dhacay isagoo qaylinaya. Iyadna waxay ku tidhi aniga iska gooyey. Markii aan yaraa Sambi ayaa gurigayga soo weeraray isagoo isla markaana lugahayga qaninay kadib cagaha ayaan iska jaray. Sababtaasina waa sababta aan Sambiga u necabahay oo Sambi oo dhan waan dili doonaa. Ayay si xanaaq leh u tidhi isla markaana isna uu iska aamusay markuu malqay hadalkeeda oo uu sheegay inuu Sambi yahay. Kadib waxa uu weydiiyey waxa uu dugsigan dadka awoodda badan ay dhigtaan uu yahay. Kadib waxa uu sheegtay in 1000 sano ka hor la sameeyay dugsigan markii uu Sambigii koobaad adduunka ka soo muuqday oo ay dadkii bini'aadamka ahaa sameeyeen si ay dadka ka dambeeya u noolaadaan iskuna difaacaan. Mr. Sambina wuxuu xaqiiqsaday in 1000 sano ka soo wareegtay tan iyo markii Sambigu ka soo muuqday adduunka taas micnaheeduna ay tahay inuu imika isagu jiro 1000 sano ka badan. Kadib waxa uu sheegtay inuu berri tago dugsiga oo imtixaanka galo isna wuxuu islaa baxso laakiin waxay ku tidhi haddii aad baxsatid ogow inaad cadow la noqon doonto dadka oo dhan oo lagu soo ugaarsan doono. Isla markaana magaceeda ayay u sheegtay oo waxay ku tidhi aniga magacaygu waa Violet. Maalintii xigtay Mr. Sambi wuxuu yimid dugsiga halkaas oo uu kula kulmay Dawn. Iyadna waxay u kaxaysay dhanka imtixaanka. Markii ay goobta soo gaadheen dad aad u badan ayaa meesha joogay. Mr. Sambina Dawn wuxuu weydiiyey haddii uu qofku qaadi karayo diyaarad miyuu u baahan yahay inuu imtixaanka galo. Iyadna waxay ku tidhi haa dabcan wuu u baahan yahay maadaama dadka badankoodu midaas samayn karaan. Intaas kadibna macalinka ayaa goobta soo gaadhay isagoo u sheegay inuu isagu imtixaanka ka qaadi doono halka uu bilaabay inuu ka hadlo taariikhda dugsiga iyo sidii loo aasaasay. Intii uu ka hadlayeyna Mr. Sambi ayaa su'aal weydiiyey oo ku yidhi haddii halkan laga dhex helo Sambi maxaa lagu samaynayaa Sambiga. Isla markaana macalinkii intuu qoslay ayuu ku yidhi cadcad ayaa loo jarayaa kadib albaabka dugsiga ayaa lagu xidhayaa xiniyahana waa laga goynayaa. Intaas markuu Mr. Sambi maqlayna aad ayuu u naxay. Cabaar kadib waxaa bilaabmay imtixaankii iyadoo ay ugu horreysay imtixaankii orodka. Markii la bilaabayna mid ka mid ah ardaydii ayaa markiiba kusoo wareegay goobtii dhammayd 3 ilbiriqsi gudaheed isagoo isla markaana kaalinta koobaad galay isagoon Mr. Sambi waxba qaban. Kadib waxaa ku xigay imtixaankii labaad oo ahaa rasaas rididda iyo shiishka. Imtixaankana Dawn ayaa ku guulaysatay oo kaalinta koobaad qaaday maadaama ay si fiican u taqaanay hubka iyo rasaas rididda halka uu Mr. Sambina iska taagnaa isagoo aan waxba qaban. Isla markaana Mr. Sambi gabi ahaan imtixaankii uu ku khasaaray oo waxba muu qaban. Kadib waxaa la gaadhay imtixaankii dhagax tuuridda. Dhanka kale macalinka ayaa dusha ka daawanayay Mr. Sambi isagoo la yaaban sida uu daciifka u yahay maadaama uu isaga dugsiga kusoo dartay Commander aad u awood badan iyadoo sheegtay inuu iyada xitaa ka awood badan yahay. Balse markuu Mr. Sambi arkay wuxuu la yaabay daciifnimadiisa laakiin wuxuu isweydiiyey haddii uu qarinayo awooddiisa. Kadib waxaa loo gudbay imtixaankii kale ee waran tuuridda ahaa isagoo isla markaana ardaygii koobaad tuuray warankiisii isagoo meel fog ku tuuray
oo lagu qiyaasay 32 kiiloomitir. Kadib Master Sambi ayaa ku xigay, laakiin macalinka ayaa joojiyay isagoo ku yidhi, sababtaad awooddaada u qarinaysaa waa maxay? Haddii aad awooddaada qarinaysid ogow inaad imtixaankan aad ku khasaari doontid oo aanad halkan ka tegi doontid, xitaa haddii commanderku adiga iskuulka kugu soo dartay. Ma laga yaabaa in adigu Sambi tahay oo adigana awooddaada qarniya ayuu yidhi. Laakiin Master Sambi ayaa markiiba qayliyay isagoo yidhi, anigu maya Sambi ma ihi. Kadib macalinku wuxuu ku yidhi, na tus waaya awooddaada saxda haddaad Sambi ahayn. Master Sambi meeshii ayuu soo istaagay isagoo isla markaana warankii qabsaday. Kadib wuxuu soo xasuustay noloshiisii oo dhammayd iyo hadafkiisii ahaa inuu bini'aadamka la saaxiibo, isla markaana fursaddan muu khasaarin karin. Isagoo soo xasuustay tababarkiisii iyo waddadii dheereed uu soo maray, isla markaana warankii ayuu qabtay isagoo cagtiisii dhulka ku adkeeyey meeshiina burburiyey. Halka dabayl xoog badan dhankiisa ka timid oo dadkii daadisay, isla markaana warankii ayuu cirka u tuuray isagoo dayaxa ka dhex saaray. Dadkiina yaab iyo amakaag ayaa soo buuxiyey. Macalinkii indhaha ayaa kasoo dhacay yaab awgeed, isla markaana Master Sambi qaabkiisii oo dhammaa wuxuu isku bedelay mid cadho badan. Intaas kadib dadka ayaa cirka kasoo daatay halka uu Master Sambina cirka eegayey. Kadib Dawn ayaa u timid iyadoo la yaaban awooddiisa. Kadib waxay ku tidhi ilaa intee in leeg baad tuurtay, laakiin wuxuu ku yidhi kaliya cirkaan u tuuray. Dhanka kale dhagixii dayaxa kasoo go'ay ayaa isaga caayayey maadaama uu dayaxa kasoo gooyey. Intaas kadibna waxaa loo ogolaaday inuu dhigto dugsiga. Kadib wuxuu weydiiyey haddii uu guriga qaban karo, laakiin Dawn ayaa joojisay iyadoo ku tidhi awooddaada waxaad ku noqon kartaa guddoomiye sida guddoomiye Violet oo kale, maadaama ay maamusho ciidan aad u tiro badan iyo hub aad u tiro badan. Xitaa waxay maamushaa magaalo dadka ku nool ay gaadhayaan 30 milyan oo qof. Kadib waxay soo galeen qaybtii shaybaadhka ee hubka lagu sameeyo. Kadib wuxuu arkay sawir meesha ku yaala isagoo isla markaana weydiiyey cidda uu yahay. Kadib waxay ku tidhi kani waa Professor Chami, wuxuuna ahaa guddoomiyihii hore ee halkan, laakiin markii xaaskiisii dhimatay halkan wuu iskaga tegey maadaama uu shaybaadho badan ku sameeyey Sambiga iyo bini'aadamka, isla markaana dadku way kasoo horjeesteen qorshihiisa iyo fikirkiisa. Kadib macalinka ayaa soo galay meesha iyadoo isla markaana weydiisay Dawn waxay rabto. Kadib Dawn waxay ku tidhi waxaan rabaa meel aan hubkayga ku qarsan karo, waxaan rabaa inaan hub badan isticmaalo, kadib kolba mid aan la soo bixi karayo. Kadib waxay u soo jeesatay Master Sambi iyadoo weydiisay waxa uu rabo, laakiin markay aragtay way ka naxday wejigiisa maadaama uu Sambi ahaa, iyadoo isla markaana ku qaylisay inuu Sambi yahay. Laakiin Dawn ayaa dejisay oo ku tidhi Sambi ma aha ee waa qof caadiya laakiin maaskara ayuu xidhan yahay. Macalinkiina wuxuu ku yidhi ma weyna waxaa rumaysanayaad waa haystaan u arkay inuu Sambi yahe. Laakiin Dawn ayaa ku tidhi maaha Sambi, anigaaba arkay markii dhaweytoole waranka uu tuurayay wejigiisa, waa qof caadi oo qurux badan weliba. Isla markaana macalinkii way rumaysatay. Kadib waxay weydiisay Master Sambi waxa uu rabay, isna wuxuu ku yidhi mar kasta oo aan dagaal galo dharkaygu wuu googo'aa, marka waxaan rabaa dhar aan iga googo'ayn. Intaas kadib waxaan aragnaa marshalkii oo jilba joogsan isla markaana hor fadhiya guddoomiyihii ururka seefyahanada. Kadib wuxuu sheegay inaanu garanayn waxa dhacay oo kaliya uu miir daboolsamay uuna xasuusan sidii looga badiyey. Kadib guddoomiyaha ayaa weydiisay haddii uu Master Sambiyada ka awood badan yahay, isla markaana wuxuu sheegay inuu iyada xitaa ka awood badan yahay. Kadibna waxay weydiisay halka uu joogo iyadoo isla markaana dhankiisa u soo kacday. Iyada magaceedu waa Shang, waxayna tartan kula jirtaa Violet oo ah guddoomiyaha kooxda mindiyaha, halka ay Shangna tahay guddoomiyaha kooxda seefaha. Tartankanna wuxuu soo socday muddo dheer oo 100 sano ka badan. Dhanka kale Master Sambi casharka ayuu si fiican u baranayay oo wax kasta oo macalinku sheego uu qoranayay, laakiin dhammaantood ayaa mar qura loogu yeedhay inay maadaan hoolka weyn ee tababarka. Markii ay meesha yimaadeenna waxay isweydiinayeen waxa la qabanayo iyo waxa dhacay, laakiin Violet ayaa aamusisay labadooda oo ku tidhi aamusa maadaama aanu dugsiga idinku soo daray sumcaddayda ha ku ciyaarina. Kadib way iska aamuseen. Dhanka kale dusha waxaa ka eegayey Shang iyadoo gacanyaraheedu u sheegay inuu kaasi yahay Master Sambi, isla markaana wuxuu ku yidhi ma rabtaa inaa awooddiisa soo tijaabiyo? Adnaha ayay ku tidhi. Laakiin intaanu gaadhin ka hor waxaa meesha soo galay guddoomiyihii ugu awoodda badnaa meesha, isagoo isla markaana dhanka Shang soo eegay isagoo ku yidhi wax arbusho meesha ha ka samayn. Iyadna waxaa ku tidhi haye oo meesha waan iskaga tegayaa baanu. Kadib gacanyaraheedii ayaa ku yidhi maad rabin inaan tijaabiyo awoodda Master Sambi, laakiin waxaa ku tidhi anu waxaan kaliya qadariyaa dadka awoodda badan, marka Master Sambi dib ayaan u dhiganaynaa. Intaa kadib guddoomiyihii wuxuu sheegay oo uu shaaca ka qaaday in la soo qabtay basaas u shaqeeya Professor Chami, isla markaana wax kasta oo lagu sameeyey wuu hadli waayey. Irbadaha jirkiisa lagu duray wuu hadli waayey, xiniyaha laga gooyey wuu hadli waayey, si kastoo loo galay wuu hadli waayey. Markaa qofkii ka hadashiiya waxaan ka dhigayaa ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenkayga. Isla markii hadalkaa dadkii malqeen aad ayay u farxeen iyagoo isla markaana mid kastaba yidhi anaa ka hadashin karaa. Laakiin 2 saacadood kadib cidna way ka hadashin kari weyday oo wax walba ay isku dayeen dadkii way ka hadashin kari waayeen. Laakiin Dawn ayaa weydiisay Master Sambi hadduu isagu ka hadashin karo, isna wuxuu ku yidhi haa waan ka hadashin karaa, weliba waan ka ciyaarsiin karaa isaga. Dawn markiiba gacanta ayay taagtay iyadoo isla markaana sheegtay inuu Master Sambi ka hadashin karo ninkan. Guddoomiyihiina hore u soo baxay ku yidhi. Kadib Master Sambi qolkii ayuu soo galay ninkii uu fadhiyey. Kadib gacanta ayuu ka jeexay isagoo isla markaana ninkii ku qoslay oo ku yidhi ma waxaad u malaynaysaa inaad gacanteeda yaraad jeexday ay iga hadashin karayso? Maya maya kaliya waad istaalinaysaa ayuu ku yidhi. Laakiin Master Sambi wuxuu ku yidhi istaag, isla markiiba ninkii wuu istaagay. Dadkiina way yaabeen. Kadib wuxuu ku yidhi magacaaga ii sheeg. Ninkiina wuxuu yidhi magacaygu waa Shio Kai. Isla markaana dadkii saa'id ayay u sii yaabeen iyagoo isla markaana isweydiiyey haddii uu Master Sambi maamuli karo dadka maskaxdooda. Master Sambi kaliya wuxuu sameeyey inuu unugyadiisa Sambiga ah
dhex geliyay jidhkiisa kadib wuxuu maamulay maskaxdiisa isla markaana Mr. Sambi wuxuu ku yidhi waxa u shaqaysaa Professor Jaime soo maaha ninkiina wuu ka jawaabay ha ayuu ku yidhi kadib wuxuu ku yidhi halkuu Professor Jaime joogaa isla markaana ninkii wuxuu sheegay inuu 500 mitir dhulka hoostiisa ku jiro oo halkaa uu qorshihiisa ka wado kadib wuxuu weydiiyey waxa ay ku sameeyeen Sambiga ee uu Sambigu la waaweynaaday isla markaana Shiokai wuxuu sheegay inay Sambiga sun ku daadiyeen iyagoo markaa Sambigiina suntaa cunay kadib suntaasi waxa uu awooday una ogolaatay Professor Jaime inuu maamulo unugyada Sambiga isagoo isla markaana u bedelaya Sambiyo awood badan oo waaweyn isla markaana markuu xogtii ka soo dhamaystay Mr. Sambi wuxuu ku amray isagoo luuqadii Sambiga ku hadlaya ayuu ku yidhi waxaad tahay qof xun dhammaantiin waxaad tihiin qof xun isla markaana waxaad samaynaysaa amarkayga ayaad qaadanaysaa kadib waad isdilaysaa iyadoon cidna ku dareemin kadib meesha ayuu iskaga soo baxay dhanka kale Professor Jaime ama Fey wuxuu gacanyarihiisii u sheegay inay cadowgoodu ogaadeen meesha ay joogaan maadaama basaaskii hadlay kadib wuxuu yidhi meesha aynu ka baxsanno laakiin Fey uu ka diiday midaas wuxuuna yidhi waxaan u baahanay inay imaadaan maadaama aan rabo inaan tuso shaybaadhkii ugu weynaa ee aan sameeyey kaasoo adduunka dhan bedeli doona markii uu Mr. Sambi soo baxayna dadkii oo dhan way la yaabeen iyagoo isla markaana ka yara baqanayay kadib guddoomiyaha ayaa ku yidhi shaqo fiican ayaad qabatay isla markaana ay soo raac si aan kaaga soo dhigo kuuguna soo saxiixay inaad noqotid guddoomiye ku-xigeenka isla markaana meesha way ka soo baxeen dhanka kale Shang iyo gacanyaraheeda waxay la yaabanaayeen waxa uu guddoomiyuhu ka hadlayo maadaama aan loo baahnayn in waraaq la saxeexo haddii qof laga dhigayo guddoomiye ku-xigeen kadib waxay go'aansadeen inay soo daba galaan xaafado cidla ayay isla yimaadeen isagoo isla markaana guddoomiyihi hadlay oo yidhi waan ogahay inaad Sambi tahay markaas sideebaad u awooddaa inaad ugu hadashid luuqadda bini'aadamka isla markaana Mr. Sambi wuu yara yaabay laakiin isla markiiba guddoomiyihii intuu hubkiisa soo saaray ayuu ku soo riday dhankii Mr. Sambi kaasoo Shang iyo gacanyaraheediina wax ku noqon gaadhan iyagoo laakiin si degdega ugu baneeyey intaas kadib waxaan aragnaa Mr. Sambi oo kurku ka go'an yahay laakiin isla markiiba xawaare saa'id ayuu kusoo dhaqaaqay isagoo cunaha ka qabtay gudoomiyihiina wuu yaabay laakiin ciidankiisii robotka ayaa isla markiiba ka soo gaadhay kuwaasoo soo weeraray Mr. Sambi laakiin weli guddoomiyaha yaab ayaa wejigiisa ka muuqday maadaama uu Mr. Sambi si yar oo fudud u burburiyey robotkiisii dhammaa isagoo weliba kurku ka go'an yahay isla markaana Shang iyo gacanyaraheedu way la yaabanayeen waxa dhacaya Mr. Sambi markiiba wuxuu soo weeraray guddoomiyihii iyagoo isla markaana weerar isku qaaday halka guddoomiyihiina rasaastiisii isticmaalayay isagoo isla markaana madaxa kaga dhuftay haddana laakiin Mr. Sambi waxba ma noqon kadib Shang gacanyaraheedii ayaa ku qayliyey in guddoomiyuhu dhibaato ku jiro laakiin Shang ayaa ku tiri may dhibaato kuma jiro weli awooddiisii saxda ah ma soo saarin kadib Mr. Sambi kurkiisii ka go'ay ayaa isla markiiba bilaabmay inuu sidiisii hore kusoo noqdo taasina aad ayay uga yaabisay iyaga kadib Mr. Sambi ayaa hadlay isagoo yidhi markaa ma rabo inaan kula dagaalamo ee aynu wada hadalno laakiin guddoomiyaha ayaa yidhi ma waxaad rabtaa inaad maskaxdayda maamusho taasi caqlagal maaha maadaama aanan anigu bini'aadan ahayn kadib wuxuu yidhi roobadadiisii kale iyagoo isla markaana jidhkiisii ku dhegay isna wuxuu xidhay gaashaan iyo armor robot ah isagoo isla markaana yidhi anigu ma ihi qof bini'aadan ah isla markaana ma kantarooli kartid maskaxdayda kadib weerar ayuu kusoo qaaday Mr. Sambi isagoo isla markaana saa'id u jir dilay halka uu Mr. Sambina aan waxba qabanayn hawada ayay iskula baxeen kadib dhulka ayuu kusoo tuuray Mr. Sambi isla markaana guddoomiyihii saa'id ayuu qayliyey isagoo yidhi Sambiga adduunka ku nool oo dhan waa inay dhintaan kadib awood aad u badan ayuu afkiisa kasoo daayey taasoo Mr. Sambi ku riday isagoo isla markaana moodayay inuu Mr. Sambi dhintay laakiin Mr. Sambi waxba ma noqon isagoo isla markaana kaliya dharku ka googeen ayuu soo muuqday kadib kor ayuu u qayliyey isagoo dhagaha xanuujiyey dhammaan wixii meesha joogay kadib wejigiisa wuxuu bilaabmay inuu isbedelo indhihiisi waxay noqdeen kuwo madow oo guluub cas leh halka uu qaabkiisii oo dhanna isbedelay dabeecadiisiina way isbedeshay gebi ahaanba guddoomiyihiina wuxuu isweydiinayey waxa uu yahay Mr. Sambi cirkii oo dhan wuu madoobaaday isla markaana adduunka oo dhan ayaa laga arkayay waxaan ka dhacaya daruuro madow ayaa meeshii oo dhan kusoo xidhmay kadib Mr. Sambi ayaa si qallafsan u hadlay isagoo ku yidhi bini'aadam yow yaro xuni waxaan ku siiyey fursadaan ku wada hadalno laakiin fursaddii waa diiday soo maaha ii sheeg sidaad rabtid inaad u dhimatid isla markaana Shang iyo gacanyaraheedu waxay la yaabeen qaabka uu isku bedelay Mr. Sambi iyagoo isla markaana go'aansaday inay meesha iskaga yaacaan halka uu guddoomiyihiina isagoo ku qayliyey isagoo ku yidhi sidee baad ila hadashaa adigoo Sambi yaro xun ah isla markaana Shang iyo gacanyaraheedii iyo ordaya ayaa weerar kusoo ag dhacay markii ay hoos u eegeenna waxay arkeen guddoomiyihii oo jidhkiisii oo dhan googo'ay kaasoo Mr. Sambi dul taagan yahay kadib guddoomiyihii wuxuu amray roobadadiisii isagoo isla markaana ay roobadadiisii dhanka Mr. Sambi u soo ordeen iyagoo isku qarxiyey isaga halka saddexdoodiina meel kusoo dhaceen kadib guddoomiyihii ayaa sheegay in Mr. Sambi aad u awood badan yahay uu khatar badan yahay laakiin Shang way ku qaylisay isagoo iyadoo ku tidhi maxaad uga cadhaysiisay adigu kadib waxay go'aansadeen inay meesha saddexdoodii iskaga yaacaan iyagoo isla markaana ordaya ay meeshii kaga yaaceen Mr. Sambina kamuu daba ordin kaliya gacantiisa ayuu kor u qaaday isagoo isla markaana dhulka feer ka jaray Shang oo ordisay ayaa isla markaana xaqiiqsatay inuu dhulku kor u soo kacayo marka ay kor eegtayna waxay aragtay in magaalada kala badh oo dhan ay soo kacday Dawn oo dugsigii joogtana halkaas ay ka arkaysay halka dadkii kale magaalada joogina ay arkayeen dhammaantood magaaladii oo dhan oo kor u kacday guddoomiyihii oo saa'id u orday ayaa gidaarkii ku dhacay isagoo isla markaana uu Mr. Sambi ka daba yimid kadib madaxa ayuu ka qabtay markaasuu ku
yidhi iminka ma dareemaysaa cabsi isla markaana wuxuu ku yidhi waad saxan tahay anigu ma maamuli karo maskaxdaada ma maamuli karo laakiin xasuustaada waan eegi karaa kadib xasuustiisii ayuu eegay kadib wuxuu ogaaday in guddoomiyihii uu ahaa agoon ilaa uu markii uu yaraa kadib saynis yahano ayaa bilaabay inay jirkiisa bedelaan iyagoo u bedelaya qaab roobad oo kale kadib wuxuu ku yidhi adigu waxaad ka darantay saambiga ku nool nolol aanay dhimanayn laakiin adigu waxaad ku nooshay nolol dhibaato ah oo xanuun ayaad ku nooshahay kadib wuxuu ku yidhi jawigaad iga qastay isagoo islamarkaana soo tuuray islamarkaana shang ayaa qabatay oo la yaabtay in master saambi xasuustana akhrin karo intaas kadib master saambi wuxuu kusoo noqday sidiisii caadiga ahayd isagoo islamarkaana naxay oo yidhi qaabkaygii xumayd ayaan dadka ula soo baxay anigu waxaan ahay saambi fiican oo dadka ma dilo islamarkaana waa inaan meeshan iskaga baxsadaa ayuu yidhi isagoo dharkiisii urursaday kadib faylod ayaa joojisay isagoo sii baxaya isagoo islamarkaana isku dayay inuu weeraro laakiin waraaqada ayaa afka ka saartay oo ku tidhi waxaad noqotay guddoomiye ku-xigeen isna wuu yaabo wuxuu ku yidhi ma guddoomiyihii baa iga dhigay sidan haa dabcan ayay ku tidhi kadib wuxuu ku yidhi oo wax kale muu sheegin miyaa haa wax kale muu sheegin intaas kadibna meesha iskaga tagtay iyadoo ku tidhi mustaqbalkaaga ayaan hore u eegayaa waxaan sugi kari lahay markaad noqonaysid guddoomiye kadib aad gaadhaysid hadafkaaga dhanka kale guddoomiyihii oo dhakhtarka jiifa ayaa shaang la hadlaysa oo ku tidhi maxaad uga dhigtay guddoomiye ku-xigeen saambi waad ogtahay inuu saambi yahaybe laakiin guddoomiyihii wuxuu ku yidhi dhibku maaha inuu saambi yahay ee waxaan rabaa awooddiisa si aan u qabto brofeser jami islamarkaana markan waa markii ugu dambeysay ee aan soo qaban doono brofeser jami dhanka kale fermid wuxuu la hadlayay saambig isagoo ku leh waxaan malqayn boqorkeennii ay bini'aadamku haystaan oo ay afduubteen islamarkaana waxaanu samaynaa waa maxay kadib saambiga ayaa u qayliyay oo yidhi waa inaan badbaadinaa boqorkeenna dusha waxaa ka daawanayay balaaki iyo ciidankii kale iyagoo islamarkaana isweydiinaya haddii uu fermid waalan yahay maadaama boqorku u baahnayn caawinaadiisa oo uu boqorku intuu doono ka awood badan yahay dadka kadib balaaki ayay ku yidhaahdeen jooji laakiin wuxuu yidhi ma joojin karayaanu keliya waxaa joojin karaya waa boqorka maalmo kadib weerar ayaa lagu qaadayay meeshii uu brofeser jami joogay iyadoo islamarkaana ciidan dhulka iyo cirka iyo baddaba meeshii lagu soo ururiyey halka uu guddoomiyihiina la hadlayay dadka oo uu ku lahaa dagaal isku diyaariya dhanka kale master sambi iyo down ayaa wada socday iyagoo islamarkaana ciidan u yimaadeen oo ay salaameen master sambi oo ay ku yidhaahdeen waxaana ciidankii kuu shaqaynaya adiga tiradayaduna waa 12,000 oo askari kadib master sambi said ayuu ugu farxay maadaama uu ciidan maamuli karo isagoo islamarkaana la kaftamaya ayuu ku yidhi haddii aan ku idhaa istil ma istili karaysaa kadib askarigii ha ayuu ku yidhi isagoo islamarkaana bambo soo saaray si uu iskugu qarxiyo laakiin master sambi ayaa naxay isagoo ku yidhi waan kaftamayey kadib bambadii ayuu ka tuuray meesha waxaa soo gaadhay 2 nin oo kale iyagoo islamarkaana sheegay inay ka socdaan dugsiga birta ee kooda ku ag yaala kadib meesha ayuu kasoo degay isagoo sheegay in halkan loogu soo diray si ay u caawiyaan laakiin ma garanayaan sababta looga dhigay qofkan daciifka ah guddoomiye ku-xigeen dhanka kale markabka dhexdiisa guddoomiye ka socday dugsiga birta ayaa la yaabanaa isna sidoo kale sababta looga dhigay qof daciifa guddoomiye ku-xigeen halka uu guddoomiyihiina ku yidhi saayid ayuu kaaga awood badan yahay oo haddii aad la dagaalanto waad isku xaaraysaa xitaa markaasuu isna qosle uu ku yidhi kaftanka inaga daa dhanka kale fay wuxuu ku amray gacanyarihiisii inay qorshahooda bilaabaan islamarkaana waxay soo daayeen saambi fara badan halka uu gacanyarihiina muraayadda ka arkay fermit isagoo la yaaban saambiga noocan ee awoodda badan dhanka kale labadii nin ayaa master saambi u sheegay inuu meesha iskaga tago maadaama uu wax matare yahay oo aanu meeshan wax ka tarayn intii ay qaylqaylinayeenna waxa meesha soo gaadhay fermit oo qaab kale u socda kadib master sambi ayaa isku dayay inuu la hadlo laakiin fermit wuu xaqiiqsan waayay isaga halka uu gacanyarihii fayna aad uga qoslayay muraayadda dabadeeda isagoo leh burburi dhammaantood 2 saacadood ka hor waxaan aragnaa in fermit uu keligii meesha taagnaa isagoo la taagan sambi oo lahaa saambigii kale way baqdeen soo maaha fuliyiintu kadib saambigii ayaa u dhiibay gaas isagoo ku yidhi waxaanad rabti soo maaha kadib meeshuu iskaga carray isagoo yidhi aanu boqorka amarkiisa kama soo horjeedsanayo fermitna wuxuu yidhi orod fulayo meesha ka tagana dhammaantood laynay bini'aadamkee kadib sun ayaa kusoo daadatay isagoo islamarkaana suntii cunay sidaas awgeedna gacanyarihii fay wuxuu awoodayay inuu maamulo fermit dhanka kale fermit gaastii uu gacanta ku hayay ayuu cabbay isagoo islamarkaana miishaartii gacantiisa ku xidhnayd kiciyey kadib aad ayuu u qayliyey isagoo meeshii oo dhan burburiyey weerarkiina dib ayuu tuuray iyaga halka ay doonna la yaabnayd waxa uu yahay kadib fermit ayaa hadlay isagoo islamarkaana yidhi kalayoo la dagaalama bini'aadan ayuu xumi islamarkaana 2 nin ayaa qoslay iyagoo la yaaban bahalkan hadlaya halka master saamina gacantii dhan u qabtay isagoo meeshii ka orday iyadna waxay weydiinaysay sababta ay u ordayaan balse isagu wuxuu ku yidhi ma dili karaan maadaama jirhkiisu aanu dhiman 2 nin weli way qoslayeen iyagoo islamarkaana mid u dhaqaaqay dhankii fermit daqiiqad kadib gebigiisiba waa lasoo tuuray isagoo islamarkaana ku dhacay kaare ka dambeeyey kii kale halka uu isna yaabay markii uu gadaal eegayna fermit ayaa gadaashiisa taagnaa isagoo islamarkaana ku yidhi sideebaad rabtaa inaad u dhimatid dhanka kale master sambi iyo dhan waxay soo dul koreen guri halka uu fermitna si xawaari loo dilayay ninkii waxaana daawanayay gacanyarihii fay isagoo faraxsan fermit ninkii ayuu wareejiyey isagoo islamarkaana wejiga ka laagay kadib ku daray saaxiibkiisii suuxay isagoo islamarkaana labadoodii soo dul istaagay ayuu weerar kusoo qaaday isagoo miishaartiisii kusoo wada laakiin ninkii gacantiisa ayuu iskaga qabtay halkay master sambi iyo dhowna dusha ka daawanayeen kadib ninkii
ninkii wuxuu yidhi ma khasaari doono maadaama anigu guddoomiye ahay, laakiin cabaar kadib wuu ooyey isagoo islamarkaana hooyadii u qaylinaya oo kule hooy meeshan iga kaxee, ma raba inaan dhintee. Dawn iyo Mr. Sambina way yaabeen, alle wuxuu fulaysanaa. Dhanka kale, Faye gacanyarihiisii wuu daawanayay isagoo saa'id u qoslaya. Askarigii la joogay Mr. Sambi iyo Dawn ayaa weydiiyey waxa ay qabtaan maadaama guddoomiye ku-xigeenkii uu yahay Mr. Sambi. Mr. Sambina wuxuu soo eegay Dawn isagoo islamarkaana ku yidhi orodoo la dagaalan oo cashar u soo dhig. Iyadna waxaa ku tidhi sidee baan ula dagaalamaa? Waxaabaad ujeedaa inuu guddoomiye dhan sidaa u kale anu sidee baan uga awood badanay. Kadib wuxuu ku yidhi gacantaada ii dhiib isagoo islamarkaana gacantii ka qaniinay halka iyadna qaylisay iyadoo ku tidhi ma waxaad rabtaa inaad jidhkayga ka faa'iidaysatid adiga maxkamad baan kula soo istaagayaa. Laakiin Mr. Sambi wuxuu ku yidhi istaji walaal anu waxba kuguma samayn ee keliya awood ayaan ku siiyey ee orodoo Fermit qabo oo la macaamil isaga. Dhanka kale weli guddoomiyihii wuu ooyayey halka uu lahaa haydilin Fermitna saa'id ayuu u qoslayey laakiin cod dheer ayaa xagga dambe ka yimid isagoo ku yidhi askariga yaraad la dagaalamaysid ma aha wax fiican ee kaale aniga ila dagaalan. Waxaan aragnaa Dawn oo qori aad u weyn jiidaysa iyadoo qaabkeedu isbedelay indhaheediina casaan noqdeen. Mr. Sambi wuxuu ku sameeyey iyada inuu unugyadeedii dhiigga ahaa bedelo kuna bedelo kuwiisii saambiga ahaa islamarkaana waxay noqotay qof awood badan. Dawn meesha ayay taagnayd iyadoo qorigeedii haysata halka uu Fermitna dhankeeda soo eegay isagoo ku yidhi ma waxaad rabtaa in aniga ila ciyaarto oo yaad isku malaysay inaad tahay. Dawna intay qosasho ayaa ku tidhi adigu maxaa tahay bahal baas bilaa caqli leh islamarkaana qorigeeda ay soo qaadatay iyadoo islamarkaana rasaas ku bilowday inay dhankiisa kusoo rido iyadoo saa'id u qoslaysa. Laakiin Fermit si yar fudud ayuu ku bambaneeyey rasaasihii oo dhan halka uu guddoomiyihiina isagoo ooyaya daba fadhiyey oo uu kaga gabanayay rasaasta. Fermit ayaa saa'id u yaabay dhanka kalena guddoomiyaha ayaa ninkii meesha ka qaaday laakiin Dawn ma joogsan iyadoo islamarkaana dushiisa kasoo muuqatay ayay bamba afka ku kala jartay iyadoo islamarkaana afka ka gelisay kadib gadaal uga booday iyadoo taasina ku qaraxday isaga. Laakiin Fermit inta qosla ayuu ku yidhi waxaasi keliya xanta ay ahayd aniga ee waxba igama qaadayaan. Laakiin rasaas ayay markiiba ka hor keentay iyadoo ku riday rasaas kolba qori cusubna soo saaraysa. Kadib askariga ag joogay Mr. Sambi ayaa weydiiyey waxa uu ku sameeyey Dawn. Mr. Sambina wuxuu ku yidhi keliya waxaan bedelay DNA-geeda. Dhanka kale Dawn saa'id ayay u qoslisay iyadoo qof waalan u eg labadii ninna saa'id ayay u qosleen iyagoo hooyadood u qaylinaya. Fermit ayaa miishaartiisii soo qaaday isagoo islamarkaana soo weeraray laakiin lugta ayay kaga qabatay iyadoo islamarkaana wejiga ka laagtay halka uu Fermitna dib u dhacay. Labadii ninna waxay isweydiinayeen sida ay gabadhan yar u xoog badan tahay laakiin islamarkiiba baasuuka weyn ay soo saartay Dawn halka uu Fermitna caba shidaal meesha yaalay iyagoo islamarkaana labadoodiisa soo weeraray halka ay labadii ninna ku dhex ooyayaan. Baasuukii ayay ku riday islamarkiiba uu kala jaray baasuukihii iyada xitaa dhexda ayuu ka kala jaray. Dadka kale waxay moodayeen inay dhimatay laakiin may dhiman iyadu. Mr. Sambi ayaa gacantiisa qabtay kadib jidhkeedii sideedii hore ayuu kusoo noqday isagoo islamarkaana ay caadi kusoo noqotay. Fermitna saa'id ayuu naxay isagoo islamarkaana ku yidhi adiguna ma dhimatid miyaa? Dawn oo qoslisa ayaa ku tidhi waan ka xumahay aniguna ma dhinto. Labadii nina naxdin awgeed ayay nafti ka bixi gaadhay. Dawn ayaa qosashay iyadoo islamarkaana ku tidhi inoo sii wad ciyaarteenna. Labadii nina waxay go'aansadeen inay meesha iskaga yaacaan. Fermitna wuu yaabanay isagoo islamarkaana ku yidhi iminka labadeena keebaa bini'aadana ama keebaa Sambiya. Mr. Sambina dusha ayuu ka daawanayay isagoo islamarkaana sheegaya in awooddiisu ay saa'id uga tan badan tahay jidhka Dawn islamarkaana ay ku sababtay inay lafeedii jajabaan. Dagaalkana wuxuu u baahan yahay inuu dhaqso usoo dhammaado haddii kale dhibaato ayaa soo gaadhaysa Dawn islamarkaana saa'id ayuu u xanaaqay. Dhanka kale Dawn waxay soo weerartay Fermin halka islamarkiiba feer ka jartay isaga kadib qori kale ayay soo saartay iyadoo islamarkaana madaxa ka jartay. Kadib Fermit ayay la dhacday qorigii halka uu isna ku lahaa waan isdhiibay iska kaydaa laakiin iyadu may joojin. Dhanka kale gacanyarihii Fermit ayaa dusha ka daawanayay. Dawnna qorigeedii ayay dhulka dhigtay iyadoo islamarkaana aamintay oo iska daysay laakiin islamarkiiba Fermit uu soo weeraray isagoo khiyaameeyey aaminaadeedii. Kadib meel saa'ida ayay ku dhacday halka Mr. Sambina saa'id u qayliyey isagoo islamarkaana aad ugu cadhaysan Fermit. Sidoo kalena wuxuu ku qayliyey Dawn isagoo islamarkaana ku yidhi sidee baad u aamintaa waxa uu ku yidhi. Dawnna sideedii hore ayay kusoo noqotay markan islamarkaana waxaa ku tidhi ma garanayo wax dhacayba. Fermit ayaa saa'id u qayliyey isagoo islamarkaana yidhi awooddaadii way kaa soo dhammaatay miyaa? Fermit gacanyarihiisina saa'id ayuu u faraxsanaa isagoo daawanayay waxa dhacaya laakiin wuxuu arkay Mr. Sambi oo soo eegaya dhankiisa islamarkaana Mr. Sambi ayaa soo dhex istaagay Fermit iyo kooxdii kale isagoo islamarkaana isku dayay gacanyarihii Faye inuu u eriyo Fermit dhanka Sambi si uu u weeraro laakiin Fermit wuu dhaqaaqi waayey waxayna u muuqatay inuu saa'id uga cabsanayay Mr. Sambi. Mr. Sambi ayaa hadlay isagoo islamarkaana ku yidhi Fermitow weli ma xasuusatid miyaa anigu ciddaan ahay? Fermitna wuu gariiraya cabsi awgeed. Kadib Sambi ayaa hadalkiisii sii watay isagoo ku yidhi miyaanu ku odhan guriga joog sababtaad halkan u joogtaa waa maxay? Fermit ayaa soo xasuustay xasuus ku dhacday beri hore isaga islamarkaana waagaas gacanyarihiisa ayaa u sheegay inuu Sambi soo booqday kaasoo sheegay inuu rabo inuu gacanyarihiisa ka dhigto isna islamarkaa aad ay u xanaaqay maadaama uu qof rabay inuu isaga shaqaale ka dhigto kadib uu u tegey qofkaasina wuxuu ahaa Mr. Sambi islamarkaana wuxuu ku yidhi ma adiga ayaa raba inaad iga dhigatid shaqaalo adigoo sidan u daciifka ah ayaad rabtaa inaan kuu shaqeeyo. Taasina waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu la kulmay Mr. Sambi. Dawn ayaa isweydiinaysay waxa ay ka wada hadlayaan sababtoo ah Fermit su'aalkiisa ayuu ku gaajay cabsi awgeed. Gacanyarihii Faye wuxuu ku qasbayay Fermit inuu la dagaalamo Mr. Sambi laakiin Fermit wuxuu soo xasuusanayay xasuustii
iyo wixii ku dhacay berigaas isagoo islamarkaana master sambi uu weji kale la soo baxay islamarkaana si yaro fudud uga awood batay kuna qasbay inuu isaga u shaqeeyo laakiin gacanyaraha fay waxaasoo dhan ma malqin isagu warna umuu hayn oo wuxuu ku qasbayay inuu la dagaalamo isagoo islamarkaana ku yidhi jidhkaagu ma dhimanayo islamarkaana maxaad la baqanaysaa laakiin waxaanu ka warqabin in jidhkan aan dhimanin laftiisu uu dhibaato geliyey fermit sababtoo ah master sambi intuu cadcad u jaray ayuu gebigiisaba geed ku xidhxidhay isagoo halkaa kaga tegay boqolaal sanno fermitna cabsi awgeed ayuu meeshiis kaga cararay halka uu gacanyarihii fayna yaabay oo la yaabay sida uga baxsaday kantaroolkiisa kooxdii kale meesha joogtayna way yaabtay iyaguna gacanyarihii fay saa'id ayuu u xanaaqay isagoo islamarkaana fay u sheegay inuu isticmaali doono sambi kale oo meesha ka dhow laakiin fay ayaa joojiyay isagoo islamarkaana u sheegay in ciidankii ka socday dugsiga dadka awoodda la dhigtaan ay meesha soo gaadheen islamarkaana helikabtar ayaa cirka sare joogtay waxaana gudaha u saarnaa shang iyagoo la socda basaaskii islamarkaana waxay weydiiyeen haddii ay halkani tahay meesha saxda ah ee uu joogo islamarkaana basaaskii wuxuu sheegay inay meeshii saxda ahaa joogaan islamarkaana ay dhulka hoostiisa ku jiraan kadib guddoomiyihii ka socday dugsiga birta ayaa islamarkiiba seef la soo baxay isagoo islamarkaana yidhi hawarwarin wax walba awood baa lagu xaliyaa isagoo islamarkaana seeftiisii soo saaray ayuu kasoo booday diyaaradii halka ay shaagna isaga u qaylinaysay xawaare saa'id ayuu ku socday isagoo islamarkaana dhulkii ku dhacay meeshiina burburiyey dhammaanteed kadib seeftiisa ayuu galka ku ceshaday isagoo islamarkaana yidhi goobta saxda ah waan helnay soo dhaadhaca shaagna waxay la yaabanayd sida ay nimankani keliya u isticmaaleen awoodooda ee aanay u isticmaalin maskaxdooda marka ay dhibaato xalinayaan kadib guddoomiyihii kale ayaa u sheegay oo ku yidhi wax walba oo la dhigo iyo khiyaamo kasta oo la dhigo awooddaba ayaa lagu burburiyaa islamarkaana diyaaradii ayuu kasoo boodaysnaa ciidankii ayaa meeshii soo galay iyagoo islamarkaana baadhaya balse meeshu waxay ka waayeen fay iyo gacanyarayaashiisii oo keliya cidlo ayay ahayd meeshu cidna ma joogin kadib waxay isweydiiyeen haddii ay meesha ka baxsadeen intay soo socdeen islamarkaana dhanka kale meesha dusheeda waxaa joogay shang iyo faylat halka ay shaangna qaylinaysa iyadoo leh maxaynaga halkan inoogaga tegayaan halka iyaguna raadinayaan cadowga haddii ay raacleen innaguna cadowga la soo qaban lahayn isla xilligan dhanka kale meel yaro ka yara fog waxaa joogay fay iyo gacanyarayaashoodii iyagoo islamarkaana xaggan usoo baxsaday dhanka kale meeshii gudaheedii guddoomiyihii seefta birta wuxuu arkay quraarad aad u weyn iyadoo islamarkaana waraaqadii ku dhegnayd waraaqadii markuu soo gooyey ee uu akhriyeyna waxaa ku qornayd halkan waxaa ku jira boqorkii saambiga aad ayuu u khatar badan yahay islamarkaana halkan fur haddii aad gabadh tahay isagoo islamarkaana nimanka ku caayiyey inay gabdha yihiin islamarkiiba gacanyarihiisii buu ku amray inuu meesha qarxiyo laakiin guddoomiyihii kale ayaa joojiyey isagoo islamarkaana u sheegay inay halkan u yimaadeen si ay u qabtaan fay oo aana dhibaato kale u abuurin fayna wuxuu ogaaday inaanu qorshihiisii shaqayn islamarkaana isagaa meeshii qarxiyeyba markii ay qaraxday qaraxii waxba iyaga kama qaadin kadib fay ayaa ku ruqayliyey isagoo islamarkaana qoslaya ayuu yidhi maanta waa maalintii bini'aadamku dhammaan lahaayeen soo bax oo bini'aadamka oo dhan laa aniga xitaa iga reebin kadib meeshii qiiq ayaa qabsaday markii qiiqii baabaayna waxaa kasoo muuqday saambi yar oo ciyaal ah iyagoo islamarkaana yaabay ayuu guddoomiyihii xanaaqay isagoo islamarkaana dhankiisii u dhaqaaqay si uu u dilo waxan laakiin guddoomiyihii kale ayaa joojiyey isagoo ku yidhi waa carruure waxba ha yeelin laakiin isagu muu joogsamin islamarkiiba wuu weeraray laakiin saambigii madaxa ayuu kaga istaagay isaga guddoomiyihii kalena wuxuu yidhi waan ogaa midan inay dhacayso isagoo islamarkaana ciidankii ku amray inay meesha iskaga baxaan ciidankiina way ka yaaceen laakiin guddoomiyihii islamarkiiba seeftiisa ayuu soo qaaday isagoo islamarkaana kala jaray saambigii laakiin laba ayuu kala baxay oo laba qof ayuu noqday taasina saa'id ayay uga sii yaabisay kadib way isku soo dhegeen jidhkoodiina wuu isku noqday kadib dhanka kale gacanyarihii fay wuxuu sii daayay saambi fara badan iyagoo islamarkaana weeraray dadkii dusha joogay shaan gacanyaraheedii oo cunto cunayay ayaa arkay fayladna way la joogtay iyaga islamarkaana shang ayaa ku tidhi waxba ha weerarin aniga igu daaya midan kadib timaheeda ayay kasoo saartay biin yar iyadoo islamarkaana isku bedeshay seef dheer kadib xawaare saa'id ayay ku dhaqaaqday iyadoo islamarkaana wejiga ka laagtay saambi kadib si yaro fudud u dishay dhammaantooda hawada ugu qaaday islamarkaana geed ayay ku istaagtay kadib meeshii way ka booday saambigii dhammaana si yaro fudud ayay u googoysay dhammaantood dhulka ayayna kusoo noqotay saambigiina cirka ayuu kasoo daatay isagoo googo'ay tanna aad ayay uga xanaajisay gacanyarihii fay isagoo islamarkaana saambi fara badan sii daayay dhanka kale meesha waxaa dhex yimid balaaki iyo ah gaw iyagoo islamarkaana raadinaya fermit kadib saambi meesha maraya ayay u yimaadeen iyagoo islamarkaana weydiiyey haddii ay arkeen fermit laakiin saambiga waraaqadii ayuu ka tuuray isagoo islamarkaana ku qayliyo ku yidhi meesha ka dhaqaaqa balaakina wuxuu la yaabay sida saambiga qabiilada kale kasoo jeeda ay u dhaqan xun yihiin ah ga ayaa u yimid balaaki isagoo islamarkaana u sheegay in boqorku ciqaabi doono haddaanay fermit soo helin balaakina wuxuu sheegay inaanu werwarin maadaamay soo heli doonaan dhanka kale saambigii iyo labadii guddoomiye saambiga ayaa hadlay isagoo yidhi aynu ciyaarno ciyaarta inoo wada guddoomiyaha ayaa soo weeraray laakiin weerarkiisii si yaro fudud ayuu ugu banaynayay oo isagu qof dagaalamaya uu lama u eekaynba kadib wuxuu ku yidhi istaag maxaad la ordaysaa haddaad nin tahay la dagaalan intaa marku marqina saambiga wuu istaagay isagoo islamarkaana jirhkiisii isku bedelay qaab gabadhoo kale iyaguna way la yaabeen waxa dhacaya kadib saambigii intuu fadhiistay ayuu ku yidhi iminkaan idila dagaalamaya haddaba kadib saambiga ayaa hadlay isagoo ku yidhi
aynu dagaalano haddaba ee kaalaya la dagaalama. Guddoomiyihii isla markiiba uu soo weeraray, laakiin seeftiisii farteeda ayay ku qabatay. Kadib wuxuu u qayliyey guddoomiyihii kale isagoo ku yidhi kaalaya caawi maxaad meesha la taagan tahay. Isna jidhkiisii Robertka ayuu xidhay isagoo isla markaana dagaal isku diyaariyey laakiin laag ayay wejiga ka jartay, kaasoo magaalada dhinaceeda kale ku tuuray. Waxaana dareemay Blackie oo ah Gav iyo sidoo kale Violet iyo Shang. Guddoomiyihiina wuxuu ku dhacay fooq dushii isagoo isla markaana meeshii qarxiyey. Kadib siduu u socday wuxuu kusoo hordhacay Blackie iyo ah Gav. Jidhkiisii oo dhanna wuu burburay markaa, waxaana isweydiiyeen waxa ay ku samayn lahaayeen bini'aadamkan. Dhanka kale guddoomiyihii kale ee dugsiga barta ayaa isna lasoo tuuray isagoo kusoo ag dhacay Violet iyo Shang. Waxayna weydiiyeen waxa ku dhacay, laakiin isagu muu hadli karin oo kaliya wuxuu yidhi Sambi ayaa soo baxay. Dhanka kale Sambigii wuxuu dusha ka saarnaa fooq iyadoo haamaansanaysa. Dhanka kale magaalada waxaa cunto karsanayay Master Sambi iyo Dawn iyo labadii guddoomiye halka ay cunto iska cunayeen. Isla markaana Dawn ayaa maqashay codka dheer ka imanaya dhanka kale. Master Sambina dhankaas ayuu u eegay. Dhanka kale Sambigii way soo istaagtay iyadoo isla markaana soo eegtay dhanka Shang iyo Violet. Labadoodina waxay isku diyaariyeen inay weeraraan. Dawnna hadalkeedii ayay sii wadatay, laakiin Master Sambi ayaa kasoo kaxay fadhigiisii isagoo yidhi waxaan soo eegayaa waxa xagga kale ka dhacaya. Shang ayaa isla markiiba soo weerartay iyadoo seefteedii kusoo tuurtay, laakiin kaliya wejiga ayay ka jartay oo waxba ma yeelin kale. Violetna way soo weerartay, laakiin laag ayay wejiga ka jartay iyadoo isla markaana dib u tuurtay. Violet awoodeedii ayay isticmaashay iyadoo gacanta dhulka ku qabsatay ayay istiri wejiga ka laag. Marka laagii ku dhufatayna laagii waxba ma yeelin iyada. Kadib meesha ayay dib iskaga soo booday. Shang ayaa weerar kusoo qaaday iyadoo isla markaana jarjartay Sambigii, laakiin weerarkeedii oo dhan way u banaysay oo kaliya biriishka ayaa googo'ay. Guddoomiyihii dugsiga birta ayaa soo kacay isagoo isla markaana u sheegay inay wax yar oo kaliya sugaan isaga inta uu gaashaankiisa ka xidhanayo. Isla markaana jidhkiisii waxaa isku daboolay gaashaan, waxaana dhankiisa soo eegtay Sambigii halka uu jidhkiisii dhammaana noqday mid aad u awood badan oo awro badan soo daynaya. Dhanka kale Violet iyo Shang weerarkoodii ayay kusii wadeen, laakiin Sambigii afka ayay kala qaaday iyadoo carab dheer soo daysay. Kadib gacmaheedii ayaa bilaabay inay isbedelaan, jidhkeediina wuxuu isku bedelay Sambi aad u weyn isagoo isla markaana u soo booday dhankii guddoomiyaha halka ay la yaabanaayeen Shang iyo Violetna waxa dhacaya. Guddoomiyihiina dhankeeda ayuu usoo dhaqaaqay isla markaana way is hor istaageen, waxayna ku tidhi hal mar oo kaliya ayaan wax isku dhufananaa markaa waa keena guulaysta. Isla markaana weerar ay isku qaadeen iyagoo isku dhuftay feedhkiina awood saayid ayuu soo daayay kaasoo tuuray Shang iyo Violet. Master Sambina dusha ayuu ka arkayay qaraxa dhacaya. Guddoomiyihii ayaa ku guuldaraystay weerarkan isagoo isla markaana qayb dhani ka go'day jidhkiisii. Kadib Sambiga ayaa ku yidhi waad guuldaraysatay, laakiin guddoomiyihii wuxuu yidhi maan guuldaraysan. Sambigina wuxuu ku yidhi guuldarrada ma aqbalaysid soo maaha, anigaa ku tusaya albaabka naarta ee soo soco. Kadib Master Sambi iyo kooxdoodii ayaa isweydiiyey waxa meesha ka dhacaya. Master Sambina wuxuu yidhi waxa ii soo uraysa ur aan garanayo isagoo isla markaana soo eegay dhankii. Dhanka kale Sambigii wuxuu yidhi waxa u muuqataa inaad isdhiibayn ilaa ayaan ku tusay awoodayda dhabta ah. Isla markaana jidhkiisii ayaa isbedelay, wuxuuna isku bedelay qaab yar oo u eeg Master Sambi oo kale markuu xanaaqo, laakiin geesa ayuu leeyahay isagu. Tanna aad ayay uga sii yaabisay Shang iyo Violet. Gacanyarihii Fey ayaa u sheegay Fey inaanu kantarooli karin bahalkan. Feyna wuxuu ku yidhi waa caadi sababtoo ah kani waa boqorkii Sambiga. Kadib Sambiga ayaa yidhi ma rabo inaan dagaalkan sii wado. Dadkii oo dhanna weerar ay kusoo qaadeen, laakiin fartiisoo kaliya ayuu ku burburiyey dhammaantood isagoo isla markaana hawada u tuuray. Kadib Shang iyo Violet ayaa kusoo ag dhacay Master Sambi isagoo isla markaana gacanta ku qabtay. Dawnna waxay la yaabtay waxa ku dhacay. Dhanka kale guddoomiyihii dugsiga birtu wuxuu ku dhacay meel aad u fog isagoo isla markaana dhulkii burburiyey. Sambigina wuxuu yidhi waan idin deynayaa oo naftiina idin deynayaa maadaama aad aad u rabtaan inaad u dhimataan. Dhanka kale Master Sambi oo ahaya Violet iyo Shang ayay Violet hadashay iyadoo isla markaana ku tidhi kaasi waa boqorkii Sambiga waxaana sameeyey Professor Chami baa sameeyey ee meeshan ka yaaca. Sambigina wuxuu maamulay Sambigii kale isagoo isla markaana ku amray inay weeraraan dadkii kale halka ay dadkiina cabsanayeen. Feyna saa'id ayuu u qoslayay, laakiin Master Sambi ayaa dhulka ku tuuray Shang iyo Violet iyagoo isla markaana la yaabay sababta uu u tuuray, balse saa'id ayuu u qayliyey Master Sambi. Sambiyadii kale oo dhan ee kusoo ordayna way istaageen dhammaantood iyagoo cabsi ka muuqato. Sambigii kalena wuxuu la yaabay waxa dhacaya. Master Sambi jidhkiisina wuxuu bilaabay inuu qaab cadho leh isku bedelo, wuxuuna yidhi haddii aad tahay boqorka Sambiga aniguna maxaan ahay talow. Isla markaana Sambiyadii kale ayaa hortiisa kusoo yaacay iyagoo samaynaya jaranjaro oo Master Sambi uu ku taltallaabsanayay dushooda. Dadkii kalena waxay la yaabanaayeen waxa dhacaya. Kadib Master Sambi ayaa hadlay isagoo Sambigii kale ku yidhi inaad hadashid ma rabtid miyaa. Guddoomiyihii dugsiga birtuna wuu yaabay, sidoo kale Dawnna way yaabtay iyadoo isla markaana tidhi oo wejigiisa saxda ama sidaas uu u eeg yahay. Sambigii kale ayaa ku yidhi oo Sambi kale aad haydadna miyaa. Guddoomiyihiina wuxuu kusoo qayliyey Violet isagoo isla markaana ku yidhi sideebaad guddoomiye ku-xigeen uga dhigataan Sambi. Yadna waxaa ku tidhi maaha shaqadaada taasi. Sambi oo dusha kaga taagan Sambiyadii kale ayaa hoos u soo eegayay Sambigii kale. Kadib Sambigii kale ayaa la hadlay isagoo isla markaana ku yidhi keenna badbaadaa wuxuu noqon doonaa boqorka Sambiga. Isla markaana Master Sambi uu ka aqbalay. Kadib uu soo weeraray Master Sambi isagoo feedh ka jira wejigiisa, laakiin waxba muu noqon Master Sambi oo kaliya wuxuu ku yidhi cunto ma soo cunin waxa feedhkan daciifkii. Kadib Master Sambi ayaa isaga feedh ka jiray kaasoo ku tuuray
tuuray magaalada dhankeeda kale, saambiyadii kalena kala baabi'iyey, magaalada kala badhna uu burburiyey. Kadib siduu u socday badda ayuu ku tuuray, markab badda iska yaala ayuu ku dhacay saambigii kale. Fe iyo gacanyarayaashiisina way yaabanaayeen. Kadib saambigii kale intuu badda hoosta ka galay ayuu soo qaaday gujis badda dhexdeeda yaalay, isagoo isla markaana cirka u soo qaaday ayuu magaalada la dul imid. Kadib wuxuu kusoo tuuray magaalada bartankeeda, dadkiina saa'id ayay u yaabanaayeen. Dhanka kale, Blacky iyo Ohgon waxay hagaajinayaan jidhkii guddoomiyaha Robertska, isagoo Ohgon u sheegay inuu joojiyo Blacky wuxuu sameynayo. Kadib wuxuu sheegay inuu cirka eego. Dhanka kale, guddoomiyihii wuxuu ka xanaaqsanaa inaanay waxba u qabanin iyagu oo keliya ay jarjarayeen jidhkiisa. Kadib Ohgon ayaa hadlay isagoo isla markaana yidhi, awradii boqorka ayaan dareemayaa. Cabaar kadib Mr. Sambi wuxuu kasoo dhex baxay gujiskii, isagoo isla markaana cirka u booday. Kadib xadhig ayuu soo qabsaday, isagoo isla markaana cunaha kaga xidhay saambigii kale. Kadib hawada jiiday, dadkiina meesha ayay iskaga yaaceen. Saambigii kalena hawada intuu kusoo jiiday ayuu wejiga ka laagay, kaasuu wejigii dib ugu celiyey. Saambigiina intuu xadhiggii qabsaday ayuu yidhi, amba waan samayn karaa midan oo kale. Kadib Mr. Sambi xadhiggii ayuu u gooyey, isagoo isla markaana dhulkii kusoo dhacay bahalkii. Gujiskiina dhulka ayuu ka kacay, isla markaana intuu wareejiyey ayuu badda ku tuuray dhammaantood. Kadib Mr. Sambi wuxuu kusoo dul fadhiistay markab badda yaalay, isagoo isla markaana ku yidhi, waxaad jeceshahay inaad wax tuurtuurto. Askartii markabka saarnayda way qeelisay, iyadoo isla markaana meesha iskaga yaaceen. Saambigii kalena isagoo gujiskii cirka ku haya ayuu ku yidhi, maxaa kaa galay adiga markaa? Aad waa soo tuuri kartaaye, soo tuur hadaad rabtid. Dhanka kale, Ohgon wuxuu hayay madaxa guddoomiyihii, isagoo isla markaana daawasiinaya waxa dhacaya. Kadib guddoomiyihii ayaa hadlay isagoo isla markaana yidhi, waan garanayaa Sambi awoodiisa, laakiin kani Professor Jami ayaa sameeyey uu ka awood badan yahay, ee meesha iskaga yaaca ku dheh. Kadib Blacky ayaa aamusiyey isagoo ku yidhi, aamus wad afdheerte, bal si fiican u daawo waxa dhacaya. Cid adduunka ku nool ma jirto oo boqorkayga ka guulaysan karta. Midaas ogow ayuu ku yidhi. Sambi markabkii dushiisa ayuu xawaare saa'ida kaga baaba'ay, isagoo isla markaana hawada kasoo muuqday. Kadib feedh ka jaray saambigii kale, kaasoo dhulka dhan ka saaray. Kadib markab ayuu ka daba keenay xawaare saa'ida ku socda, kaasina wuxuu kusii tuuray dayaxa, isagoo isla markaana ku taagay markabkii dayaxa dhexdiisa. Dadkii oo dhanna way yaabeen, iyagoo isweydiinaya sida ay macquulka u tahay taasi. Sambina dhulka ayuu kusoo noqday, isagoo markabkiina ku taagan dayaxa, halka ay dadkiina yaaban yihiin weli. Kadib saambigii kale ayaa markabkii iska fujiyey, isagoo isla markaana yidhi, weli ciyaartu may dhammaan. Kadib xawaare saa'ida ayuu markabkii kusoo dhaafay. Mr. Sambina intuu hoos u foorarsaday ayuu dhulkii ka boodaysnaa, halka uu saambigii kalena markabkii qabsaday, isagoo isla markaana wareejiyey cirka dushiisa. Kadib kusoo tuuray dhankiisa, meeshiina qarax saa'ida ayaa ka dhacay, kaasoo dadkii oo dhan ka yaabiyey oo magaaladii oo dhan qariyey. Laakiin Mr. Sambi waxba ma noqon oo keliya markabkii intuu kusoo noqday ayuu haddana ka booday. Kadib wuxuu weydiiyey saambigii kale waxa ka qaldan ee ku dhacay isaga awoodiisii, sababtoo ah inuu daciif yahay ayuu sheegay. Dadkii kalena dhagaxyay ku dhex dhuumanayeen, iyagoo isla markaana ka baqanaya waxa dhacaya. Saambigii kale saa'id ayuu u xanaaqay, isagoo aad u qayliyay ayuu ku yidhi, ciyaartu weli may dhammaan. Kadib weerar ayuu kusoo qaaday Mr. Sambi, isagoo gacantiisii kala baxday ayuu gacantiisii weerar kusoo qaaday. Kadib gidaar ayuu ka jaray fooqa, gacantiisiina dib ayuu ugu celiyey meesheedii. Laakiin Mr. Sambi wuu iska soo kacay oo waxba muu noqon. Guddoomiyihiina wuxuu la yaabanaa wuxuu dhacay, isagoo yidhi, tani caqli galba ma aha, sidee u dhacdaa? Markaasuu yidhi, waan ogahay inuu Sambi awood badan yahay markuu jirkiisa bedelo, laakiin uma malaynay inuu ka guulaysan doono Sambigan cusub. Kadib Blacky ayaa aamusiyey isagoo ku yidhi, yaa kugu yidhi boqorka iyagu mar kaliyuunbuu isbedelaa. Isla markaana guddoomiyihii wuxuu xaqiiqsaday in Mr. Sambi uu dhowr jeer isbedeli karo. Kadib Mr. Sambi ayaa hadlay isagoo isla markaana yidhi, sideebaad u moodaa inaan aniga isku leefal nahay, imaba dhowid anige. Waxaad moodaa inaad awoodeeda oo kale leedahay, isla markaana waxaad ku leedahay aan wada shaqayno. Guddoomiyihiina wuu yaabay. Mr. Sambi hadalkiisa ayuu sii watay, isagoo jirkiisa sii bedelayo, isagoo isla markaana yidhi, adigu waxaad kaliya jeceshay inaad adduunka burburisid, laakiin anigu waxaan jecelahay inaan bini'aadamka la shaqeeyo. Markaa sidee been isku mid u noqon karnaa? Dhowna waxay isweydiisay waxay ka hadlayaan, laakiin ninka ag jooga ayaa ku yidhi, maxaan ka ogahay, dee hore soo dhageyso. Sambigii kalena wuxuu ku yidhi, middan waad ka qoomamayn doontaa. Laakiin Mr. Sambi hadalkiisa ayuu sii watay, isagoo aad u cadhaysan, isla markaana wejigiisi wuxuu isku bedelay sidii bini'aadamka oo kale, oo jirkiisii dhammaa wuxuu isku bedelay qaab bini'aadan oo kale. Kadib kor ayuu u qaydiyey, isla markaana timihiisi madow ayay isku bedelay, wejigiisiina weji bini'aadan ayuu isku bedelay. Taasina dadka ayay ka yaabisay. Kadib fooqa dushiisa ayuu istaagay, halka uu Sambigii kala dareemay awoodda iyo awrada Mr. Sambi. Guddoomiyihiina wuu suuxay, isla markaana ayuu wejiga ka dharbaaxay isagoo ku yidhi, kac bini'aadamyow, kacoo daawo waxa dhacaya. Mr. Sambi qaabkiisii dhammaa wuu isbedelay, iminkana wuxuu u eekaa bini'aadan oo kale. Kadib roob ayaa soo daayay, Sambigii kalena wuxuu ku qaylinayay Mr. Sambi isagoo weydiinaya wuxuu uu yahay. Kadib weerar ayuu kusoo qaaday, isagoo rabay inuu feedh ka jaro, laakiin dhibcihii roobka ayaa istaagay dhammaantood. Kadib Sambigii kale si yaro fudud ayuu u googooyeen dhibcihii roobku, dadkii oo dhanna hawada ayuu ka qaaday. Roobkiina cirka ayuu dib ugu noqonayay, maraakiibtii badda saarneed kor ayay u kacday, xitaa kalluunkii iyo nibiriyadii badda ku dhex jira ayaa kor u soo baxay, iyagoo isla markaana dhulka kusoo daatay. Kadib Mr. Sambi ayaa hadlay isagoo isla markaana ku yidhi, anigu waxaan ahay aabbaha bilaa-adab iyo dhaqanka xumi. Duufaan aad u weyn ayaa meesha ay joogeen kusoo goobatay, iyadoo isla markaana wax walba oo dusha joogay ay dhulkii kusoo daateen, halka uu nibirigiina kusoo duldhacay fooq dushii. Fe iyo gacanyarihiisina way yaabanayeen, iyagoo isla markaana isweydiinaya haddii waxaasi nibiri yahay. Sambigiina wuxuu la
yaabanaa sida ay tani caqligalka u tahay. Kadib Fay gacanyarihiisii ayaa weydiiyey haddii uu arkay Saambi sidan oo kale u awood badan. Fayna wuxuu ku yidhi maan arag. Isla waqtiga Saambiga ayaa intuu soo kacay ayuu gacantiisii dib u bogsiyey iyadoo isla markaana caadi kusoo noqotay. Kadib wuxuu ku yidhi Mr. Saambi, ima dili kartid aniga ee waxba ha isdaalinin. Isla markaana Mr. Saambi ayaa intuu hadlay ayuu gacantiisii kor u qaaday isagoo isla markaana soo jiiday Saambigii kale. Kadib wuxuu ku yidhi waxaan u malaynayaa inaad qalad fahansan tahay dhimashada, sababtoo ah qofka in la burburiyo jirkiisa oo keliya qofka kuma dhinto ee siyaabo kale ayaa jirta oo uu ku dhiman karo. Isagoo isla markaana ishiisa kala qaaday ayuu wuxuu tusay Saambigii xasuus kumanaan sano ka hor dhacday oo ka dhaxaysay Mr. Saambi iyo bini'aadamkii berigaa noolaa, iyagoo isla markaana isticmaalayay robots iyo tiknoolajiyad aad u sarreysa. Isla waqtigaana Mr. Saambi wuxuu burburinayay hubkoodii isagoo timo aad u dhaadheer leh, halka uu Saambigiina aad u qaydiyay xanuun dartii isagoo isla markaana maskaxda ka dhintay. Isagoo Mr. Saambi kor u haya ayaa dadkii waxay isweydiinayeen waxa uu ku sameeyey. Isla markaana Mr. Saambi wuxuu soo daayay Saambigii kale isagoo isla markaana fooqii kasoo dhacay oo dhulka kusoo dhacay. Gudoomiyihiina wuxuu isweydiinayay sababta aanu jirkiisu u dhaqdhaqaaqayn Saambiga. Isla waqtigaana Blacky ayaa hadlay isagoo isla markaana ku yidhi waxa laga yaabaa inuu ka baqday jirka saddexaad ee boqorka iyaga markuu arkay xasuusta boqorka. Isla markaana uu suuxay. Gudoomiyihiina wuu u qaadan waayay hadalkaas. Dhanka kale Fay wuu u qaadan waayay waxa dhacay isagoo isla markaana meesha caag ku noqday, laakiin gacanyarihiisa ayaa qabtay isagoo isla markaana ku yidhi aynu ka faa'iidaysanno ay baxsanno intay sii jeedaanayna keen. Laakiin isla markiiba gadaashiisa waxaa kasoo muuqday Mr. Saambi kaasoo ka nixiyey dhammaantood. Kadib Mr. Saambi ayaa hadlay isagoo isla markaana ku yidhi miyaad isa soo dhiibaysaa mise waxaad rabtaa inaad la kulantid Saambiga aad samaysay? Hal sikin ayaad haysataa ood ku go'aansan karto waxaad qaban doontid. Isla markaana dhammaantood way isdhiibeen iyagoo yidhi inaan dhimanno ma rabno. Sidaasna waxaa lagu soo qabtay Professor Chami oo waxaa soo qabtay Mr. Saambi. Dhanka kale Mr. Saambi meel ayuu iska fadhiyey isagoo caadi kusoo noqday. Kadib Violet ayaa dhowan weydiisay waxa ka qaldan isaga, laakiin Mr. Saambi wuu calaacalayay isagoo isla markaana leh anu waxaan ahay Saambi fiican markaa ma xumi ee mar dambe ma rabo inay isku bedelo qaabka cabsida badan. Kadib Violet ayaa usoo dirtay Dawn oo ku tidhi orod la soo hadal. Dawn waxay ku tidhi waan ka cabsanayaa, laakiin Violet ayaa dabada ka riixday iyadoo isla markaana ku tidhi waxaan kaa dhigaynaa gudoomiye ku-xigeenka Mr. Saambi markuu gudoomiye noqday orodoo tag. Iyadoo aadir socota ay la hadashay. Isla markiiba wuu istaagay isagoo ka nixiyey iyada. Kadib wuxuu yidhi waan gaajoonayaa, sidoo kalena waxaan rabaa inaan dharkan iska bedelo. Kadib Dawn ayaa soo kaxaysay isaga iyadoo isla markaana weydiisay haddii uu xasuusto wixii uu sameeyey. Kadib wuxuu ku yidhi waan xasuustaa. Isla markaana wuxuu sheegay inuu xasuusto inuu la dagaalamay Saambiyo noocan oo kale ah waqti hore. Intaas kadib Fay iyo gacanyarihiisii waxay ku jireen gaadhi isagoo isla markaana Fay qoslayay. Kadib gacanyarihiisii ayaa weydiiyey waxa uu ku qoslayo. Fayna wuxuu yidhi maan moodin inuu Saambi noocaas oo kale ah jiro, waxaan ballan ku qaadaya inaan dhiiggiisa oo kale helo kadib aan sameeyo Saambi isaga ka xoog badan. Sidaasna waxaa lagu soo joojiyey dagaalkii uu Saambiga abuuray. Fayna waa la xidhay. Isla markaana Mr. Saambi wuxuu noqday gudoomiye isagoo isla markaana warays laga qaaday oo ay dowladdu ka qaaday. Isla markaana waxaa la weydiiyey magaalada uu rabo inuu gudoomiye ka noqdo. Isla markaana wuxuu doortay magaaladiisii hore ee Saambigu ku noolaayeen, taasoo aad uga yaabisay dadkii kale iyagoo kule magaaladaas way burburtay maxaa u dooratay magaalada, laakiin magaaladaas ayaan ku qanacsanay ayuu yidhi. Magaaladiina waa loo soo ansixiyey, laakiin midani aad ay ugu xanaajisay agaasimihii u doorayay magaalooyinka gudoomiyeyaasha, taasoo tidhi waa maxay Saambigan bilaa aqligii. Laakiin iyadu may ogeyn inuu Mr. Saambi uu yahay Saambi dhab ah ee waxay u haysatay inuu yahay qof bini'aadan ah, waxayna la yaabanayd sababta uu qof bini'aadan u dooranayo magaalo ay Saambi ku nool yihiin. Intaas kadib Saambiyadii kale waxay kusoo noqdeen magaaladii halka ay ciidankiisiina ilaalinayeen isaga. Mr. Saambina wuxuu bilaabay inuu dib u dhiso magaaladan. Kadib ciidankii ayuu u diray isagoo ku yidhi Saambiyada geeya guryahooda, halka uu Mr. Saambina yidhi tani waa bilowgeenna. Isla waqtigaana waxaan aragnaa Fermit oo ku xidhan fooq dushii isagoo isla markaana ooyaya oo le qalad ayaan galay iska kay cafi. Sidaasna waxaa kusoo dhammaaday seasonkii koowaad ee Mr. Saambi. Isla markaana muuqaalka xiga waxaynu bilaabi doonaa season 2 ga Mr. Saambi.